ciidan كملتريجا يقاد خبرد أن أقول يا قاد أنت أنك أقان عيدا وحلا جربه عيدا وحلا جربه بعدين حقيقة صادوا تاجن تيرو تاجن وكلها وفلتجن وملير وحكاركا وعنو وملير كتوجن كرا وعنو وملير كاركرا وقياس كرا تلابا لبعض وربع على وينو قادو يدين كايجا بديه نينك قاد كعنا أنت أسبوع كوري معناه hadduu qaad cunayo qabshadiisa iyo bacdiisa iyo istakiimadiisa iyo wixiisa inta isku duwanayo qaadku wuxuu hoodadeeyaa ciidanka wuxuuna u hoodadeeyaa cadowga waxa uu hoodadeynaya ciidanka markaan leeyahay askariga waxa laga rabaa inuu u fiirsado inuu ka fiirsado qofku markuu marqaansan yahayna uma fiirsado waxa laga yaabaa adigoo isla shaqadaadii oo heegan ku jiro oo bacda qaad kugu jiro oo saas heegan ugu jira inaad aragtid islaan qardhad degan oo xoogaa kiish bariisa wadata laakiin adiga markaas ilaa waa marqaansan tahay maskax marqaansan ma naqaanaay go'aan degdeg inaad gaarto oo daalin qarax bay wataa islaamna ma aha waa nin kufur oo damulaaxo dariskaayo islaameed alxabad wadnaha ku goysid waxaa la rabaa walaalayaal askari saad u taagantihiin marka aad u taagantihiin oo sida hadda aad 8 klinka u ahaydeen oo tababarka ugu jirteen iyo qulka iyo nuurka idinka muuqda wiilka yarka oo qarna degan oo Soomaaliyeed maanta markuu idin arko abiis intuu tagu raba aabba anaguna askari baan rabaa nimankaas oo kala rabaa inaan noqdo wakaas askariga la rabaa runtaan idin sheegayaa burburkii kadib xaaladdu sidii ciidanka lagu ahoon jiray inkastoo ay fafaalo fiican muuqato inkastoo ay saraakiil nadiifa iyo rag nadiifa jiraan haddana sawirka laga haysto askari fulixantiis ma mooga idinkuna waa ogtiin waa nin qori wato qaad wata waxaa la yidhaahdaa maadaama aan qaad ka shaqeeyo dadka ugu badan oo qaadka cunaa waa askarta waxaan rabnaa sawirkaas raggii bedeli lahaa inaad noqotaan sumcaddaas ciidamada raggii kor u qaadi lahaa inaad noqotaan 8 bilood baa tababar ku soo jirteen mar dhow waa la idin xirayaa waxa idin sugaya dal waxa idin sugaya dadkaas iyo dalkaas ku wajaha miirqab maskax clean ah oo marqaansanayn saakatiin humaagiinu ka baqayaa nidaamka iyo kartida iyo karaamada idinka muuqata subaxa saaka laakiin haddii la dhaho qaylo halan bay intaas ii dhibi idinkaaba isku mashquulay wala idinku gaadi karaa waa xaqiiq jirta ninka askariga sida aad u taagantiin shacnigiisa iyo nuurkiisa iyo haybadiisa iyo karaamadiisa wakaasa tusaalaha askariga Puntland iyo askariga Soomaaliyeed laga wado hal fariinna waa oo ka socota madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni meel ku qorta tayeynta ciidanka marka lagu leeyahay midda aan halkaas saaka u joogo tayeynta haddii aad intaas tababar qaadatay haddii aad intaas oo juhdiya martay haddii aad intaas oo dadaal martay haddii intaas oo buuro iyo tababar intaad qaadatay maalinka lagu fasaxo ceelka ugu waliga alif la qaanaysa waxa la qaatay go'aan ah ninku hadduu u qaad cuno oo u go'o dalacsiin ma jirto waxa la yiraahdo ninkii asagoo uniformkiisa qaba oo duty ku jira oo waajibaad oo shaqo ku jira qaad lagu arkana halkaas calankii Soomaaliyeed iyo calankii Puntland igu fusuran yahay gacanta rasaasan qaad ugu haysta laba yeelayo waa dhamaan waa la yeeli jiray civil war baa la soo maray burbur baa la soo arkay 24 sano jirta Puntland mar dambe loo dul qaadan maayo taliyayaashuna waa ogyihiin idinkuna ogaada waa digdiin walaalayaal waxaan idin rajaynayaa guul walaalayaal waxaan idin rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu idin la jiro mar kale aan idin kaga mahad celinayaa amniga aad sugteen waxa lagu goodinayo oo lagu naaloonayo meelaha qaarkood oo aragteen yani Soomaaliya Amison iyo Amtas iyo Ugandays iyo bababa aad ba ugu faraxsana idinka ah oo ciidini jooga idinkiina idinku kalsoon yihiin oo nabad lagu seexdo because shaqada aad qabataan awgeed waxaan
rabnaa in la sii wanaajiyo intii un baan rabnaa maxaa la yidhi waxa faraska loogu dhuftaa ha ka badisa weeye saaka intaas un baan wadnaa hawl waad qabaysaan tababar horla waad sii qaadateen waxaana idiin rajaynayaa inaad halkaas iyo meel ka badan ka sii gaartaan